بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله دي بقدر waxaan wadaagi doonaa saddex eray oo afkeena ka mid ah ujeedkooda. Ereyga koobaad waa eemamo. Eemamadu waa rejo, filasho, naawilaad ayuu la macnayaa ama dhursug. Waa ammaantayda, ahlantayda, salaantayda iyo eemameyntayda, macnaa naawilaadayda. Ma ilkii xabaashaan kugu eemameeyaa, macnaa kugu sugaa. Ereyga labaad waa irdho. Irdhadu waa dareen cabsi weheliso. Irdho qaado aashaana soco, ayar hadalkaaga isagoo afkaagana yasiro, edebtu waa doore. Agnaan waxa uu lid ku yahay aftahan. Waa qofka aan si wacan u qeexi karin, u soo bandhigi karin waxa uurkiisa ku jira amba uu maagan yahay inuu yidhaah. Gabyagana waa kii lahaa afka waa yaqaanaa waase ka agnaan, oo ah inaanu nuxurkiisii qeexi karin. Waad ku mahadsantihiin dhegeysigiinaas. Fadlan sii faafiya ama share ba dhaha.